waxaan ahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cigaal waxaan ku dhashay magaalada Hargeysa 29 bishii Afraad 1955 waxaan ku dhashay guriga hospitalka Hargeysa waxaan ka dhashay qoys ka kooban 7 hablood iyo 3 wiil waxaan ahay sayga Barwo Farduus Maxamed Rooble waxay ilaahay nagu arsaaqay 5 caruur ah oo wiilal ah waxa la igu sheegay inta badan inaan ahay hogaamiye dadkiisana u dabacsan shisheeyahana ku adag waxaan waxbarashadeedii ku qaatay ilaa dugsiga sare Jamhuuriyadda Soomaaliland gobolladeeda maadaama aabbahay uu ahaa askari ka tirsan sarkaal ka tirsan ciidankii booliiska waqtigii Ingiriiska la qoray intii dambana ilaa 80kiina uu shaqaynay hooyadii Allah u naxariisto Aamina Jaamac Cashuur waxay hooyo karti badan hase yeeshee anigoo fasalka koowaad ama fasalka koowaad dugsiga hoose ayay dhimatay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo weli xasuustayda kama bixin waxaan dugsiga hoose ka bilaabay magaalada Berbera waxaan ku dhamaystay 4 sano ee dugsiga hoose dugsiga dhexe waxaan ka bilaabay magaalada Hargeysa dugsiga caanka ah Axmed Gurey oo ku qaatay fasalkii 5aad iyo kii 6aad dabeedna waxaan u bedeshay Burco oo xilliga aabahay loo bedelay waxaan ku dhigtay fasalka 7aad magaalada Burco fasalka 8aad waxaan ku qaatay magaalada Sheekh dugsigaygii sare 4 sano waxaan ku qaatay isna magaalada Sheekh dugsiga sare waxaan dhameeyay 1977 maalin caana baan u fadhiisanay imtixaanka oo ahay 7 bishii 7aad 1977 waxaan galay dugsiga Xalane oo lagu tababari jiray ardayda dugsiga sare dhamayso dabeedna waxaan ku shaqeeyay sanad macallinnimo waxaan macallin ka ahaa dugsiga dhexe boardingka Odweyne 1 sano ardaydii beriga aan macallinka ahaa dad badan baa rag waayeel hadda maanta oo qaar ganacsada qaar madax dhaqameed qaar ku maqan dalalka dibadda intaba way joogaan kadib waxaan tagay Muqdisho oo markaa dhammaan ardayda ka soo baxay dugsiga sare isugu tagi jireen sababtuna waxay ahayd jaamacadda qura ku taala Soomaaliya xilligaa waxay ku taalay Muqdisho siidkii halkii dawladdu joogtayna way ahayd dhammaan shaqooyinkana waxa loo doonan jiray Muqdisho xilligaa waxaan galay shaqo hay'adii ugu horreeyay ka shaqeeyay waxay ahayd hay'adda loo oran jiray hay'adda dan wadaagaha ama Ingiriisiga Settlement Development Agency oo ahayd hay'adii loogu talagalay inay dejiso dadkii abaaruhu waxyeeleeyeen abaartii daba dheer ee Soomaaliya ka dhacday guud ahaanba waqooyi iyo koonfurba marka dad badan oo xoolo dhaqato ah halka la isugu geeyay dugsiga sare markaan ka baxay saan sheegay shaqaan bilaabay inta shaqada ku jiray haddana waxbarashaan bilaabay waxaan bilaabay baxadkii lagu dhigan jiray maamulka iyo maareynta SIDM Somali Development Administration and Management oo ku qaatay 2 sanadood oo post secondary ah kadib waxaan sameeyay shahaadada koowaad ee bachelorka loo yaqaano aan ku sameeyay accounting waxaana course ka bixinayay maxadka SIDM iyo California State University waxaana ahayd qoladii ugu horreysay ee sameeya shahaadadaas ku sameeyay Muqdisho
kadibna waxaan galay MBA oo ay waday jaamacad ku taala New York State University ee Melbourne. koob iyo siddeetankii dhammaadkiisii waxaan ku wareegay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya. halkaasaan joogay ilaa 88 waxaan la bedelay magaalada Moscow 1988 waan ka noqday qofka labaad ee safaaradda ama deputy head of mission. halkaa waxaan joogay 88 ilaa 96. intaan masku joogay waxaan diblooma sare ku sameeyey macadka African Studies Institute ku yaala magaalada Moscow. kadib shahaadooyin kala duwan baan ku sameeyey jaamacadda Helsinki. tii aan joogay dalka Finland la yidhaahdana waxaan ka mid ahaa madaxdii jaaliyadda Somaliland aasaastay dalka Finland. 99kii wixii ka dambeeyey waxaan soo guuray dalka jamhuuriyadda Somaliland waan markii hore shaqooyin gaar ah ka bilaabay. markaan imid Somaliland safarkaygu ugu horreeyey waxaan wadnay saraakiil ka tirsan xisbigii dalka xukuumayay markaa Finland oonu halkan fact finding mission ama xaqiiq raadin ay u yimaadeen Somaliland. waxaa ka dhashay inay kaalmooyin kooban ay noo fidiyaan dalka Finland oo ka mid yahay dugsiga Candlelight ee magaalada Burco iyo institute-kan Hargeysa. waxaa kaloo qolooyinkaasi runtii kaalmo weyn ka geysteen dadka qaba baahiyaha gaarka ah ama naafada ah. intaa kadib waxaan Hargeysa ka bilaabay ganacsi kala duwanaa oo aan ganacsiga ku jiray ilaa xilligii aan baarlamaanka gelayay. baarlamaanka markaa doorashadiisii markii la gelayay 2005 waxaan isu sharaxay mudane ka tirsan golaha wakiilada oo ahaa golihii ugu horreeyey ee la doorto. waxaan iska sharaxay gobolka Saaxil magaalada Berbera. waxaan ahaa mudanihii ugu codka badnaa gobolka. saddexdii xisbi ee markaa tartamayey waxay kala ahaayeen Ucid, Udub iyo Kulmiye. anigu waxaan ka tirsanaa xilligaas kana mid ahaa dadkii aasaasay xisbiga Ucid. saddexda xisbi midna aqlabiyad ma helin. markaa xisbiga Ucid wuxuu ku guulaystay inuu cid isbahaysi la samaysto isaguna uu noqdo guddoomiyuhuna wuxuu noqday aniga. muddo 12 sannadood baan hogaaminayay golaha waan ahaa guddoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland. xiriirro badan oo caalamiya baanu samaynay xilligaas oo ka mid yahay inaanu goobjooge ka noqonno barwaaqa sooranka dalalka loo yaqaano baarlamaanadooda baarlamaanada Afrika iyo xiriir badan oo dalalka dunida ah oo Afrikaaniya iyo Yurubiyin intaba ah. 2011kii waxaanu aasaasnay xisbiga wadani. rag badan oo siyaasiyiin iyo dhakhaatiir iyo cid walba way ku sugu jireen. allah u naxariistee Cabdilaahi Siciid Deeraa ka mid ahaa. ina Cali Jawhar baa ka mid ahaa dhakhtarkii allah u naxariisto isna. waxaa ka mid ahaa aadan miro waqaf iyo dad kale oo waaweyn oo reer Somaliland baa ka mid ahaa. Axmed Xuseen Farfagaash baa ka mid ahaa dadkii nala aasaasay. xasan xuseen baa ka mid ahaa iyo dad kale oo aan halkan ka wada sheegin ba way jireen. xisbigaasi maanta wuxuu noqday xisbiga ugu weyn sidaa ka war haysaan Somaliland. haldoorkii Somalilandna waxaad moodaa maanta inuu halkan isugu imanayo insha allahu. maantana waxaanu u taagannahay markii labaad
anigu u taaganahay inaan noqdo musharax madaxweyne jamhuuriyadda somaliland rajo weyn baana ka qabnaa in shacbigu taageeri doonaan isbedel doonka oo aan anigu hogaaminayo haddii alla yidhaahdo xisbi da'yar buu ahaa laakiin waxaan isleeyahay taariikh weyn buu sameeyey isagoo dhowr sano jiray wuxuu helay aqlabiyad weyn oo ka badan 40% ilaa 42 codkii muwaadiniinta reer somaliland xisbigu wuu koray inuu koray waxaa markhaati ka ah doorashadii ugu dambeysay ee golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka oo xisbigu xaqiijiyey inuu yahay xisbiga ugu ballaadhan wuxuu noqday xisbigii ugu ballaadhnaa golayaasha deegaanka hase yeeshee waxaan isbahaysanaynay xilligaas xisbiga ucid aanu iska bahaysanay golaha wakiilada iyo golayaasha deegaankaba marka xisbiga wadani marka la eego 50% ayuu ku guuleystay inuu noqdo meeyarada gobolada jamhuuriyadda somaliland iyadoo inta kalena aan nala ahaa xisbiga ucid oo meeyar ku-xigeenkaba ka noqday magaalada burco ee gobolka togdheer waxaan hadda u taaganahay ama xisbiga u taagan yahay ama barnaamijka siyaasiga ee xisbiga wadani uu u taagan yahay oo ku metelaya dhammaan isbedel doonka jamhuuriyadda somaliland inuu soo celiyo kow dhaawaca soo gaadhay midnimada shacbiga somaliland wax ka qabto wuxuu u taagan yahay inuu wax ka qabto dib u dhiska iyo dib u noolaynta iyo soo celinta qabkii ciidanka qaranka jamhuuriyadda somaliland iyo tayeyntiisa iyo daryeelkiisa iyo caafimaadkiisa iyo qalabka ciidankaba in dib loo tayeeyo haddii la yidhaahdo wuxuu taagan yahay wax ka qabto musuqmaasuqa baahsan ee maanta gaadhay dhammaan qaybihii xukuumadda haddii la yidhaahdo wuxuu u taagan yahay inuu wax ka qabto hoos u dhaca ku yimi xiriirkii beesha caalamka ula lahaa jamhuuriyadda somaliland oo ay lumisay saaxiibo badan waxaanaynu ognahay jamhuuriyadda somaliland maanta inay xiriirkii xitaa ay lahayd dalalka deriskeeda oo maanta uu hoos u dhacay ama xumaadayba ama colaadba ay ka taagan tahay waxaan wax ka qaban doonaa insha allahu adeegyada bulshada oo ay ugu muhiimsan tahay caafimaadka iyo waxbarashada oo si cad barnaamijka ugu qoran in la kordhin doono ugu yaraan 50% 5 sannadood ee soo socda waxaan wax ka qaban doonaa shaqo la'aanta dhalinyarada ee baahsan haddii ilaahay yidhaahdo waxaan soo bandhignay barnaamij sida ka warqabteen siyaasiga xisbiga waxaanu shacbiga weynaha jamhuuriyadda somaliland ugu baaqaynaa inay barnaamijka nagu doortaan si aanu u noqono adeegayaal wanaagsan oo dadkooda u shaqeeya inaan sharaxo waxay igu kalifay daldalooyinka aan soo sheegay tiriyey iyo qaar kalena sheeginba inaan wax ka qabto oo aan noqdo nin dalkiisa u shaqeeyay iyo dadkiisa inaan dadkiisa ka shaqaysanayn dalkiisana ka shaqaysanayn laakiin u shaqaynaya insha allahu gaar ahaan waxaan isqusayaa inaan maadaama aniga iyo rag badan oo garanaysaano xisbiga ku jira ay u leeyihiin khibrad weyn siyaasadda arrimaha dibadda inaanu iyadana culays weyn saarno oo xiriirka somaliland la lahayd dunida soo celinno oo saaxiibad cusub kasbanno si somaliland ugu suurto gasho inay hesho aqoonsi caalami ah kana mid noqoto beesha caalamka hogaamintaydu insha allah waxay ku fadhiyi doontaa mid tala wadaaga waxay ka fogaan doontaa tala maroorsi iyo dictatorship waxaan muhiimadda saari doonaa maadaama hadafka iyaga koowaad yahay midnimada xalinta khilaafaadka waxaa ka mid ahaa ardaydii ama dafcaddii ugu horreysay ee ku sameeya
diblomaha sare jaamacadda Hargeysa macadka nabadda iyo xalinta khilaafaadka waxaan hore ugu soo sameeyay xalinta khilaafaadka jaamacadaha kala duwan oo dibadda waxaan insha Allah ku dadaalaya anoo kaashanaya waa aragnimadayda iyo xirfadda aan u leeyahay hawshaaba in khilaafaadka Somaliland aynu ka saaro si shacbigiisa loo mideeyo inta siyaasadda ku jiray shacbiga Somaliland waxay ka warhayaan inaan soo saaray siyaasiyiin dhalinyaro ah oo qaybaha kala duwan ee bulshada ku jira ama baarlamaanka ku jira ama deegaanka ama madaxda xisbiga ka mid noqda insha Allah waxaan ku dadaali doonaa dhalinyaradaas generationska cusub aan soo saaray siyaasiyiinta inay hogaaminta dalka qayb ka noqdaan hogaamiyayaasha mustaqbalka ee Somaliland waxaan runtii aan shacbigayga Somaliland u sheegayaa inaan taariikhdayda ay ka mid tahay inaan ballanqaadyada aan qaado aan fuliyo waxaan u sheegi doonaa shacbiga u sheegaya oo cadeynaya in ballanqaadyadii aan qaadnay ama barnaamijka ku jira insha Allah wax duruufu loo diido mooyaane aan fulin doono haddii Allah yiraahdo fariintayda ugu dambaysa waxaan kaga tagayaa shacbiga Somaliland halkan waan ka salaamayaa waxaan leeyahay Somaliland maanta waxay u baahan tahay hogaamiyo nabadooda ka shaqeeya dalka xasiliya khilaafaadka ka saara Somaliland ma baahna hogaamiye kala qaybiya hogaamiye u kala abtiriya sida daraadeed waxaan shacbiga Somaliland soo jeedinaya inay maanta oo ay fursad haystaan inay codeeyaan ay codkooda ku hubsadaan inay siiyaan isbedelka waxaan u taaganahay waan ku celinayaa inaan shacbiga midayno iyo midnimada Somaliland inaanu adkayno difaaca qaranka haddii la yiraahdo Somaliland ha noolaato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته